magacyada dumarka ee quraanka lagu sheegay kuwii ugu quruxda badnaa iyo macnahooda ayaan kula wadaagayaa barto magaca koobaad maryam yaa maryam qunuti lirabbiki wasjudi warkaci maca raakiciin magaca maryam waxa laga wadaa gabadhii cibaadada badnayd gabadhii dhowrsoonayd gabadhii ilaahay u shaqaynaysay allah magac ka wacan miyaa jira maya wallahi magaca labaad sundus ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق magaca sundus waxa laga wadaa dhar kamida dharka jannada waana xariirta sundusay adigoo adduunka jooga ayaa waxa sidataa magac kamida magacyada jannada ku faan magacaad magaca saddexaad raxma illa rahmatan min rabbik in fadlahu kana alayka kabira magaca raxma waxa laga wadaa naxariis dhimrin iyo wax walbo wanaaga uu ilaahay ku siiyo magaca intaas ama ugu filan wallahi raxmoy sundusay maryamay iyo dumar walbo idaawanaya iyo qof walbo idaawanaya intaan iga salaamaya salaam